عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت تاريخ تاشنت بيش سجالات وما أنت الحمد لله أهد إلهي رجالك أنت اللي يقودها يا ورشيخ ما رتها يد إلهي رخص عيد ما لنا فرا يد إلهي رادو إنه جوجان علوم دي علبان دي أخيارتي هوينكي ذاتك اللي يقود طلق العال كان ما رتين يكون عفين يد إلهي رادو وعلى يقود يا ورشيخ وعصاص دقيست ما رتين وحسنين وحص دقيستين جنينا ما رتين إلهي قوام فعد إلهي رادو هذا نحو ليبنا دي إلهي رادو الشيخ بلد كبير كيس دي إلهي رادو شاطران شيخ قاسم أو شيخ ويل وكيل كاد إلهي رادو تانكي عيلك ورشيخ لقى قضي أين هرجلي سي هيئة هلب الصومالي أورجانيزيشن عيلكاسو مركب أو مال جليي محسن كاللي يراه يحيى وحن إلهي ورجيهنا إن إلهي خيرك أو جعلها كسيو الدنيا آخرة إلهي ومركتنا حريستو صدقة جارية وهي صدقة جارية أنا وحي لمتها يقف حتى دي غيريوتو إذا نول صلاة يصون يصدق الله بحيسو أجر كذا إلا ذا مركا وحنا شو كمركتي وديبي أو مركتي مسؤول وقدقي شيخ بلد كشيخ قاسم شيخ عبد الرحمن أو عمر أو شيخ أنا مركتي دقمة إلى صوماليا ما يلبضن لقي وذي يقانو إستقان مسؤولية اللو ديبي إلى إذن كسوغان الله كأقبله ومدانا الله كو أنفعه wax badan ana looga faa'iideysan doona masjidka ugu horeeyo magaalada meeshan hadda dadka inay ku shaqeystaan loogu talagalayo kawaana MCH ka meel badan ala raba in looga faa'iideysto sugan ajir Allah ka siiyo waana nooca ku shaqeeyo solarka ana hadda shidaal aan ku bixin tamarta qorraxda insha Allah ta'ala looga faa'iideysahayo وحان لنا أجر يا خير الله كثوابيو إلهي كسوان ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال ما أنتي وحان سون مضي حفلة دان أو عيلكي دقمة ورشي لقى قضي صوماليات قار أهان ومدى دقمة ورشينا أي كفا إيدي سلهات واي عيل كاني وعيل لوبا هاي وهاي وانا لوبا هناي وانا نلو قضي هاي أدى معاها كساعدي أو عدة كصدق ستنا وحان لنا هاي أجر إيا حسنات الله كسيو جزاكم الله الخير وحفي عن نوقبتين هدانا هاي دقمة وأنا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله آدي أنا وفرحنا هاي دوا قدوميها أورك دلنا دقمة والشيخ وحقو فرحنا هاي دمان كدنا راهان عيل كان قيمها بلان قروح بلان أو نقول لسي أو لغوس دقيستي مجالنا ورشيخ أنا عيل دنجود oo aadna waxa waay wax badan looga faa'iideeyay oo hadda inta waxa waay maanta xafladiisa furtaaq aad joogno dadkan ay sugu waayeen qaarkood inta shaqada socotay biis aan isticmaaleynay wax shuruuda ku xirnaysan jirin waxa leenahay aad iyo aad waxa uu mahadceliyayna waana soo dhaweeyna ka dhalin ahaan gadagma ahaan marka insha Allah waa mahadsantihiin cid alla cid soo shaqeystaan علينا ajir Allah qasiyo wastaqa jaariya jazakumullahu khayr bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala rasulillah ulama udiinta odayaasha haweenka dhamaan ka soo qaybgalayaasha xafladda waxaan leeyahay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhamaantiin qof walba oo halkaan joogo maanta waxaan u taaganahay xarag jarka ceelkan oo solar nooca solarka ku shaqeeyo Somali Help Organization degmada ku deeqday sheeqeena sheeqaasin sheequl beledka loo wakiishay أجر يا حسنات الله كسيو اللي يريدي كسو شقيسي أو وغوريو ولكن يحيى هدان هاي قوله ديغان كدقمد ورشق وهان وهاينا أبال يوم حد إلين أو هاينا إلهي أجر يا حسنات هكسيو وهي كمت هاي أعماش وناكسن أو لسمايو عيل إن لقضاء مساجد إن لدسو وهي كمت هاي أعماش أو وناكسن أو قفك بني آدم كأو سمايو haddana waxa la soo marsiyay meeshii ugu fiicneed oo warshaaq loo soo marsiyo oo shaqeene shaqaasuna loo soo marsiyay markii waxaan leenahay anaga waan hadaan hay goliyada deegaanka waa ka mahadcelinaynaa waxaan leenahay ajar iyo xasanaad Ilaahay haniga siiyo wuxuu noqon doonaa eelka ugu horeeyay oo laga faa'iideysto oo ku shaqeeyo solarka marka waxaan leeyahay waxaan ku soo dhaweynayaa marka xildhibaan kamid ah golaha deegaanka wakiilka maamulka bismillahirrahmanirrahiim maanta waxaan isugu nimidnay furitaanka ceelka
ceel biyood laga sameeyey degmada Warsheekh ee noogu Somali Helping Organization marka sidaas daraaddeed waxaana maanta farxad weyn noo ah annagoo dhalinyarada degmada Warsheekh ah maamulka degmada odayaasha bulshada haweenka maamulada odayaasha dhaqanka culamo diinka dhamaanteen annagoo wada faraxsan ayaa meesha isugu niminay xafladaas waxa waaye qiimo weyn noogu fadhidaa maanta aad aan faraxsanahay maxaa jira cid loo dhiibay waa sheekayni waxa kortay qofka ugu macquulsanaay oo loo baahnaa in wax lagu aamino ama wax loo dhiibo qofka ugu macquulsanaay gacanta marka walaalkay waxaan u sheegaa meesha aad ka bilowday meel aad u wanaagsan waay tiisay gashay marka ceelkii maanta haddii loo gacan geliyay sheekha beledka oo annaga dhanba gacantiisa aan ku jirnay waxaan filayaa in qof walba ay ku qanacsan tahay meesha isugu tilmaanta Warsheekh waa qanacsannahay maxaan ku qanacsannahay sheegin noola keenay oo sheekhan lagu wareejiyay asagana mas'uuliyadiisa oo noo hayo dhinaca haddii la fiiriyo inaan ka faa'iideysiyo dhinaca ka faa'iideysiga u baxno maanta waxa uu ku yaalaa meel muhiim ah waxa u dhow masaajidkii oo looga faa'iideeyaa waxa u dhow isbitaalkii oo biyo u baahan waa looga faa'iideeyaa kawaanka hadda cusbay oo shaqo u baahan oo shaqadiisa ay socoto uu ku dhow yahay waa looga faa'iideeyaa waxa kale oo jir maxkamadayni maanta biyo la'aan haysay maanta waa looga faa'iideeyaa marka waxa ogaataa walaalkay maanta meel ka fiican oo ka fursad fiican wax ku bixileed ma jiro sadaqa jaari idoo tahay wixii laftii inta wixii ugu fiicnaa ay tahay haddana waxa ugu sii faa'iideysatay maanta meelo badan oo ceelkan daboola baahi badan oo daboola xaqiiqatan annaga aan nahay maamulka oo culays nagu hayso haddana waxaan diyaar u ahay anoo wakiilka ah maamulka degmada khaasatan gudoomiye Darafey waxaan jecelahay inaan maanta gacanteeda waana maalintii ugu horeysay taariikhda anigoo xildhibaane anoo kasmaha gudoomiyaha anoo reer Warsheekh anoo dadka Warsheekh deegaanka asaliga inaan maanta daafuro ceel sheekayga Sheekh Qaasim Sheekh Cabdiraxmaan mas'uuliyadiisa loo dhiibay aniga farxad khaas ah inta waliba aad iyo aad weyn taariikhdeedana waxaan jeclahay in meel fiican geli doonto maanta waxaan diyaar u ahay anoo wakiilka gudoomiyahayga iyo maamulkayga inaan daafuro mas'uuliyadaas aan isaaran maanta dadka shacbiga hortiisa waxaan marxaati ka tihiin inaan maanta furaayo ceelka oo loo dhiibay mas'uuliyadiisa oo leeyahay sheekayna Sheekh Qaasim Sheekh Cabdiraxmaan bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahir rahmaanir rahiim anoo wakiilka hay'adda African Development Trust maanta mashruucii soo socday 3 bilood 4 bilood ku dhawaad in maanta xarag jirkii aan u joogno aad baan u faraxsanahay Somali Helping Organization walaalkan Yaxya hooshii oo soo dhiibay uu noo soo dhiibay ceelkan oo solar powered well ah aad buu ugu mahadsan yahay Somali Helping Organization ayaa bixisay iyadoo ugu tabarucday ama ugu tala gashay inay ka faa'iideystaan dadka reer Warsheekh iyo deegaanada ku dhow sida dadka reer guuraaga oo imaada xilliyada jiilaalka dadka deexda degan oo imaada inay ka faa'iideystaan sidoo kale inay ka faa'iideystaan MCH-ka oo weyn oo ku dhow oo Warsheekh inuu ka faa'iideysto kawaanka malayga inuu ka faa'iideysto iyo maxkamadda iyo masaajidkii oo hadda biyihii sidoo sheekha uu noo sheegay biyaha la geliyay farxaddaas maanta way ku mahadsan yihiin dadka nagala soo qayb galay uu ka mid yahay xildhibaanka ahna kusimaha gudoomiyaha degmada Warsheekh uu ka mid yahay Maxamed Abuukar Cadaawi uu nagala joogo guddigii uu sheekha u xilsaaray in ceelka ka warqabkiisa ilaalintiisa hagaajintiisa iyo dayactirkiisa waxaa nagala joogo Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Qaasim Sheekh Axmedey Xaaji Muxidiin Cali sidoo kale waxaa nagala joogo Maxamed Cabdi Nuur oo ah asha dhaqanka degmada gudoomiyaha dhalinyarada degmada Warsheekh sidoo kale waxaa nala jooga Xasan Maxamed Axmed oo ka mid ah guddiga u xilsaaran ceelkan inay dayactirkiisa hagaajintiisa iyo ka warqabkiisa iyo bulshada inay ka faa'iideysato ayagana u xilsaaran sidoo kale ayadana waxaa nala joogta Farxiyo Odowaa
oo ka tirsan ururka haweenka degmada oo iyadana ka mid ah guddiga ceelka ka warqabaya oo ku jirta aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan dadkii inta nagu soo dhaweeyay dadkii furitaanka nagala qayb qaatay dadkii hawsha intay socotay fududeynayay arrinkan isagana kaalin mugle ka qaatay oo dhulka bixiyay dhulkan inta la eg bixiyay in lagu dhiso ceelkan aad baan isagana ugu mahadcelinayaa sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada oo isagana aad noo soo dhaweeyay si maxallaha hawshan si wanaagsan ay u fusho dhammaan aad baan ugu mahadcelinayaa dadka deegaanka oo aad noo soo dhaweeyay iyo sheekha aad baa u mahadsantiin Soomaali helbi waa mahadsan tahay ceelka ay noo dhistay iyo soolarka noogu shaqeeyay aad ay ugu mahadsan yihiin ceel oo bambo iyo waxa ka shaqeeyay iyo batooran arki jirnay oo gacanta lagu shubaayo hadda alxamdulillah shukr ceel oo waxaan helnay oo ma sha Allah oo caalami ah aad ay u mahadsan yihiin rabbil alamin hay'adan waa u duceynay waana mahadsan yihiin boqolkiiba boqol oo hay'adda keentay khayr Allah عاش الماء داون درنا وكعب سجرنا مرة ناقدي عجرنا أنا هذا كار قبل أيقا دعدي ما شاء الله الحمد لله شكرا هذا عيال كان سيد الله قضي سوق بيه كقادا ما شاء الله وآخر رئيسنا وأنا أدعويني هيدا خير الله سيو ولا الكي يحيي خير الله سيو وأنا مع سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته